waxyaabaha lala yaabo argagaxa iyo dhibaatada leh waxay tahay qof inta la dilay 9 bilood la raadinay 9 bilood kadib la helay meedkiisa oo qalfoof ah wallahi billahi waa arin laga naxo laga argagaxo insha Allah gabadhaas ilaahay waxa uga baryaynaa inuu ilaahay raxmad iyo janno firdawsi ugu deeqo qofkii waxaas uu ku sameeyeen oo qof Soomaaliyeed oo islaam ah inuu ilaahay asna soo hanuuniyo xaq ilaahay oo tuso dibku u geystan oo cadaaladda ilaahay la hor keeno oo cadaaladda uu maro sababta wax laga aamusi karo ma qof inta la dilay la qariyo 9 bilood dhan jawaan lagu shubo jawaan la fihi oo la kala aqoon waay la soo bixiyay wax lagu argagaxa waay ma ahan fal la fiirsan karo fal bini aadanimana ma ahan insha Allah qoyska dibkaas ku dhac ilaahay waxa uga baryaa inuu ilaahay qalbigooda ayagana uu qaboojiyo gabadhaasna ilaahay waxa uga baryaa inuu ilaahay jannadiisa firdawsi ugu deeqo fiidiyogan ila daawada fiidiyogan waa bulshada weyn reer Gurceel oo markii dibkaas uu dhacay imaaday godkii gabadha lagu riday oo daawanayo fiirinayo caruurta yaryarka banooniga dheelays markay soo bixiyeen godka ay ka soo bixiyeen meesha shabaqa maxaa dhigi jiray jawaanka meesha lagu tuuray laga soo bixiyay ayagoo fiirsanayo isugu soo bixeen dareenkooda cabirayaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سلامة دمان برشيدة كحرة channel كي ميل كستو أدونك كجوكتين وحاني رجينا قاري عافي ماضي فرحة دي بش إن شاء الله إن ما أنت وحاني بطل قري فيديو غان يركا أو عدك أو كاقه الله دعددي كدعدي مقالة قرعيل ديغانا دا قلموك تاسو اهيد إن قبضي إن لوي سنة 9 بلوت قطرو الله نحرستي وميد كيدا لغيها لي duleedka magaalada ayagoo ilmo raadinayaan ayadoo meel lagu duugo jawaan ilmo iskaga ciyaarayaan meel banooni ku dheelayaan ay ka heleen ayadoo jawaan ku jirto la jarjaray runtii waa dhacdo aad iyo aad u murugo badan oo u naxdin leh sababtoo ah qof islaam oo inta la dilay hadana la jarjaro oo jawaan lagu riday oo hadana haween ah waa argagax kaleeto cid kastoo sameysay falkaas wuxuu u egyahay fal oo qof arxan laaba oo uu sameeyay إن شاء الله إلهي وحق برينا إنه إلهي جنة فردوسات وكورابيو إن إهل كيدنا وصمر إيمان وقصيو دمان قبلها إهويين كصوماليات تعدي قلوق جيسنا هذه أدب فربديها مثل قفصة مثل الدلو مثل داوع مثل شرشرة مثل قلق مثل أيضا مال مريسو نمر أن لوجي قف أفتلو أفتو هذه والله تعدي هذا وصابدنا يعني وهوين كصوماليات لوج جيسنا منعها وح ويرلا يريسن كرا dhibaatadaas aad ku farada badan leh insha Allah waxaan rajeynayaa qofkii waxa sameeyay iyo waxa la midka ah inuu Ilaahay xaq tusi doono Ilaahay ka soo saari doono xaq gabadhaas masaakiinta ah loo geystay gabadhaas muddo 9 bilood ay qoyskeeda raadinayeen ay ruwaysanayeen geeri iyo nolol meel ay ka baxday ilaa oo laga helay maanta marka waa wax la yaabo qof inta ka aaweysay meel uu ka baxay email uu jiro haddana aragtay asagoo jawaan ku jiro qalfoof ah 9 bilood ka hor meel lagu jarjaray wixii waxa sameeyeen ay yihiin dad Soomaaliyeed oo islaam ah oo islaamnimo kula sheeganayo waa wallahi argagax aad u weyn waay Ilaahay waxa uga baryaynaa qoyskeeda inuu qalbiga Ilaahay u qaboojiyo faralka noocaasna hadda waa ku soo bateen deegaanada Soomaaliya
dadka waxaa sameynayaan waa dad anagoo kala Soomaaliyeed dadka noocaas ah Ilaahay iimaanka ha geliyo qalad weyn waxaa in gabar ama hooyo ama qof islaam oo waxba ku dhiman inta la dilo oo la jarjaro haddana la qariyo dilka xataa kale ee qofka markii la dilo xataa haddii markaas la arko xataa waa wax laakiin 9 bilood kadib qofkii qalfoof noqdo meedkiisi aba laga ashaya noociisa u yahay xataa la fahmi karin oo jawaan ku jiro qalfoofoobo shaqligiisa dhan uu bedelmay in la arko wallahi waa wax aad iyo aad yaab u leh kuma soo talagalin inaan video maanta soo duubo ama aan soo hadlo maayo sababtoo ah waan iska xanuunsanahay laakiin waxa ka aamusi waayay dhibaatooyinka soo noqnoqonaya oo maalmahan ku soo batay social media iyo deegaanada Soomaalida oo ah hooyo Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed dhibaato mar walba loo geysanayo oo dhibaatadaasna ay tahay mid soo noqnoqoto oo aysan jirin cid wax ka qabanayso iyo cid ka hadlaysa midna maalinta horeysa laga hadlayo la dhihi maxay saan ku dhacday waxaan loo sameeyay maxay ta waxaan dhacay kadib iga gadaal ma arkaysid qof ka hadlaysa ama cid kaleeto oo warka asaga soo qaadayso wallahi billahi waa wax laga yaabay in wax inta arin argagax leh intaas leeg intuu dhacay in aydan haddana laga hadlin oon laga dhiidhinin oon ficil laga qaadanin in haddana laga aamuso gabar yar la kufsana waa laga aamusaa maalmaha la sheegaa dib dambe wax u sheegay ma arkaysid gabara sun la siinaa ninkeeda sun siinaa ninka jecel sun siinaa maalin la sheegaa maalin dambe wax sheegay ma arkaysid mid jidka lagu dila hal maalin la sheegaa maalinta la wada wax sheegay mal qof walba marka dhibka gaaro wuxuu u yaallaa qoyskiisa iyo reerkiisa sababtoo ah arkaysaa Soomaaliya hadii marba aan dadkii bulshada aad ka dhalatay ee bulshada noocaan ay tahay oo qofka haduu dhintay hadii la silciyo hadii la saxriiriyo midna qof ka hadlaysa aysan jirin ama qof soo hadal qaadayso qofkii kuugu fiican oo soo sheegan uu yahay qof maalintaas bas inta sheegay iska dhaafay oo maalinka dambeys aan soo hadal qaadin uu noqdo maxaa lagu tilmaami karaa qofka noocaas wax lagu tilmaamo wallahi lama yaqaano marka insha Allah waxaan rajeynayaa in maalin u imaan doonta cadaaladda Ilaahay wax walba arka wax kama qarsoona sida loo galay loogu tacdinayo hooyooyinka Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed ama nin jecel oo jecel isku dila adduunka wax ka dhaca maahan qofka haduu ku jecel qofka jecel waa inuu qodaxdii mudaysa xataa aad ka ilaalisid qof la dhahayo jecel baa loo dilay qof la dhahayo jecel loo dilay oo jecelkii hebel asoo jecel uu dilay asoo jecel uu sun siiyay asoo jecel uu jarjaray asoo jecel uu saasay wax jecel waxa lama yaqaan waxa waa majnuunimo iyo waali cas qof waalan oo waxa sameyn kara sababtoo ah jecelku waa kalsooni waa raxmad waa naxariis qofka aad jeceshaan waxa la rabaa in naftaada si wax oo jecesha si ka darna ugu jeclaatid wax walba oo dhibay ka ilaalisid oo dhibaatadiisa asaga ku dhiclay adiga iska hormarisid ma ahane weedan waxa soo bato waxa la dhahayo qofkan hebel wuxuu sameeyay wax jecel uu sameeyay waxaas bilaay waxaas jecel lagu sameeyay waxaas jecel ma ahan jecelka noocaas hadda soo baxay hadii waa wax kale taba jecel lagu tilmaami karo waa cunsurinimo iyo musuqmaasuq sababtoo ah jecelki waa kii wax walba ka hormarin jirto ma qofka jecesha dhibo dhanaaba ka ilaalinay inaad dishid ma keeni kartid qof cadow ku qabo oo cadaabad ku qabo la qofka ku dili karo insha Allah marka waxaan rajeynayaa in videogan aan idinku dheereenin dadka waxa sameynayana in Ilaahay naga qabto oo gabdhaha masaakiinta ah mid ay dilaan iyo mid ay qalaan iyo mid ay jarjaraan ka dhigayo qoysaska ee dhibaatooyinkaas ay ku dhacayaan waa qoysas anagoo kala ah hooyooyin anagoo kala ay Ilaahay dhibkaas ku dhacay oo Ilaahay ugu dhibdhaamo oo qalbigooda samir iyo raxmad uu ka buuxiyo insha Allah asxaabta qaaliga waxaan ka codsanayaa videogan la in soo gaaro inaad share gareysiin like tii saartiin aad u mahadsantiin